السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعدا وديال دمانتين بمال كستوا جوجتان ياسي والبوم وقال كأن يدين سو قارا يا هلكا سيدا توسكا نوغلا سعوتان ووررتي في كسو دوادة تبينتين توسكا qodobada ugu waaweyn aanu idiin soo gudbin doona waxaa ka mid ah 100 maalmood ayaa laga joogaa dib ugu soo laabashada xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxyaabo badan oo la islahaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loo calaamadeyn doona wax ka qabashadooda ciidamo eegin. mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ayaa dhacay. haddaba ma dhaba inay xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay haysato fursad weyn oo dahabi ah oo dagaalka argagixisada ay shacbiga iyo dowlad ahaan si wadajir ah loo wajihi karo. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaa kaloo aanu idiin soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo fariin u diray ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee jooga deegaanada gobolka Hiiraan ee cadawga la dagaalamaya. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxa uu ugu baaqay ciidamada Soomaaliyeed in aysan ku milmin arrimaha siyaasadda. warbixin ku saabsan ayaanu idiin haynaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa qayb ka u diyaar garooba goordhow. markale kulan wacan daawadayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo halkaas sida tooska tibinteena aad ugula socotaan saaxiibayaal. waa warar TV waxaynu ku bilaabaynaa qodobkeena ugu horeeya ee tibinta tooska. waxaanu eegaynaa fariinta la xiriirta 100 maalmood ayuu jirsaday taliska dib ugu soo laabtay xafiiska ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. 15 May la doortay xasan sheekh haddana ay gabagaba tahay bisha Agoosto. waxay tirsiimaha maalmaha xafiis iyo xukun joogiisuba ay noqotay 100 maalmood iyo maalmo dheeri ah. xasan waxyaabo fara badan oo la islahaa dowladiisa xoog ay saari doontaa, waxyaabo badan ay ka qaban doontaa, aad bay u wajihi doontaa, waa ay dardar geli doontaa, waana ay u soo jeesan doontaa, xoog ay saari doontaa, mudnaanteeda koowaad ay ka dhigi doontaa. mir lagama qaban, cidi uma soo jeesan, xisaabi kuma jirto. taasi waxay waxoogaa rajo hoos loo dhigay ugu noqotay dareenkii iyo gacaltooyadii xooganeed ee aragtiyaha qaar ee xukunkiisa lagu taageersanaa. xasan waxyaabaha lagu taageeray waxaa ka mid ahaa xasilinta amniga iyo xoreynta dalka. ilaa iyo haddana cidi tallaabooyinkaasi ma aysan qaadin oo weli waa la is eegayaa marka loo fiiriyo xaaladaha iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee haatan soo baxaya. marka aanu ka tusaale tilmaam qaadano 100kaas maalmood waxaa dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa. argagixisada Soomaaliya ayaa weerartay dhismaha hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho ku yaala nawaaxiga kiiloomitir 4 ee caasimadda. sidoo kale weerarkaasi waxa uu banaanka keenay inay ciidamada dowladda kala saari waayaan la dagaalanka argagixisada iyo badbaadinta dadka iyo sidoo kale in laga baaqsado burburinta dhismaha. laakiin khasaaro, ismaandhaaf, kala shaki, kala howlgelid, kala socosho iyo kala sooc ciidan ayaa ka dhacay. markii ugu horeysay muddo kadibna waxaa la arkay inay dabley ka tirsan argagixisada Soomaaliya soo weeraraan dhismo ku yaala Muqdisho, ka dagaalamaan, haddana aanan meedkooda la arag, iyo kooxda oo sheegatay inay si nabadgelyo ah dagaalamayaashooda uga soo baxeen hoteelka oo ay dib ugu soo laabteen deegaano markii hore ay ka baxeen. tuhun kale, dareen kale, hawl kale iyo cabsi kale xoogan ayaa halkaasi ka dhalatay marka xogta iyo xaqiiqooyinka waaweyn ee amuurahaasi qoseeya laga tusaale qaato. maxaa cusub hadda? waxaa la leeyahay nidaamka xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre waxay haystaan fursad shacbiga ay dabcan qayb uga noqon karayaan dagaalka ka dhanka argagixisada. sababtoo ah shacbigu mar kale ayaa la dareemayaa in ay hayaan dareen iyo soo dhoweyn weyn marka loo fiiriyo weerarkii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay isgoyska Soobe 14 Oktoobar, kaas oo guud ahaan dowladii madaxweyne Farmaajo ay ka khasaarisay fursad ay dalka uga saari kartay argagixisada. marka loo fiiriyo shacbigu inay kaceen oo ay caroodeen oo ay ogaadeen in cadawgan dhammaantooda ay dil ugu wada xukuman yihiin. haddii dowladda iyo shacbigana ay isgarab galaan ay kuwan dalka dhibaatada ku haya muddo kooban gudahooda looga saari karayo. haddana arrintaasi ma shaqaynin. kooxduna way ka gaabsatay inay qirato oo ay sheegato mas'uuliyadda maadaama ay ogaatay in kacdoon shacbi uu dilaacayo, iyaguna xukunkooda iyo damacooda iyo hanjabaadooda iyo dilalkooda iyo cabsigelintooda iyo bilaqadooduna ay soo gabagaboobi doonto. sidaas awgeed mar kale hadda waxaa la leeyahay xasan iyo xamse waxay haystaan fursad shacbigu ay qoriga ku qaadan karaan, ku dagaalgali karaan, ciidamaduna ku biiri karaan, iyagoo caadi ah shacabna ishubayn karayaan,
jiida dagaalka degi karayaan lana dagaalami karayaan cadowga madaxyaasha. Laakiin sida looga faa'iideysan karo fursadani, sida loo wajihi karo amuurtatan ayaa ah mid weydiimo badani ay ku hareereysan yihiin oo ay ku horgudban yihiin marka xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka iyo fariimaha ugu waaweyn ee amuuraha kan quseeya ay muujinayaan. maxaa cusub waqti xaadirkan? dowladdu waxay ogaatay muhiimadda howlgallada ka socda Hiiraan. Xamse ayaa taageeray, Xasan ayaa bogaadiyey, wasiirka gaashaandhigga ayaa tegay, odawa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada dhulka ayaa labaduba gobolka iyo deegaanada tegay, jiidda hore ee dagaalka tegay, ciidamada dhiirigelinaya oo la socda kuna jira furimaha dagaalka. waa fariin kale oo xasaasi ah, waa dareen kale oo soo dhaweyn leh, waa hawl kale oo bogaadin mudan, waa dhaqdhaqaaq kale oo rajo soo celin ah. sidaas awgeedna waxaa la isweydiinayaa habka loo wajihi doono, sida looga faa'iideysan doono iyo fursadahan dahabiga ah, hab iswaafajintooda xeeladaysan sida maangalka muhiimka mahuraanka ay ku noqon karto waqti xaadirkan. xasan sheekh iyo kooxdiisa ayaa wajahaya fursado kale, laakiin durba dhaliilo waaweyn ayaa loo jeedinayaa markay noqoto inay weli cadgoosi iyo sidoo kale damcan xoolo boob iyo xin siyaasadeed ay ka bilaabeen dalka. sidaasna waxa ay ku yaraan doonaan rajada odaytinimo iyo mas-uuliyadda waayeelnimo ee xasan lagu tuhmayay ee uu xukunka dib ugu soo laabtay waqti xaadirkan. arrimahaas ayaa ugu waaweyn docda kale. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa ugu baaqay ciidamada dowladda Soomaaliya ee jooga furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Hiiraan inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo isku dhexdooda keeni karto, taas oo la aaminsan yahay inay dhaawacayso guud ahaan dareenada midaysan, howlgallada wadajirka ah iyo dareenka wada howlgelid ee ciidamada. waxaana uu ballan qaaday in dowladda sida ugu dhaqsiyaha badan dadka deegaanka is abaabulay ee ciidamada la socda ee dagaalamayana iyaguna ay gargaar iyo gurmad muuqda oo dhinaca sahayda iyo gargaarka noloshaba ay heli doonaan. dowladdu waxay ilgaara ku eegi doontaa dadka deegaanka ee dayacan ee dhibaataysan ee duruufaysan. waxay heli doonaan adeegyada asaasiga ee bulshada. dadka deegaanka ee hubka qaatayna waxay heli doonaan dayac iyo sida waxay heli doonaan ilaahdee daryeel iyo kawarqab buuxa iyo in la siiyo sahay ciidan iyo gurmad kale oo ballaaran sida xogtu ay muujinayso. dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Shuute ayaa ugu baaqay ciidamada dowladdu inay ka fogaadaan fal kasta iyo tallaabo kasta oo ay dabcan ugu milmi karayaan arrimaha siyaasadda. dabcan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare dabcan Shuute ayaa sheegay in ciidamada waajibaadkooda iyo shaqooyinkooda xasaasiga ee asaasiga ay garanayaan oo ay og yihiin, sidaas awgeedna looga baahan yahay inaysan haba yaraatee ku milmin arrimaha kan oo la aaminsan yahay inay dhaawacayso dhaqdhaqaaqooda, sharafkooda, karaabadooda iyo inay u daacad noqdaan dalka iyo dadka. ciidamada waajibaadkooda waanu ka warqabnaa. in dhoweydba culaysyo ayaa iska jiray, ciidamo siyaasad ku milmay ayaanu arkaynay. falkaasi caadiyanba sharciga door kuma lahan, waana mid sharci darro ah oo ay tahay in lagu ciqaabo ciidamada falalkaasi iyo tallaabooyinkaasi caado ka dhigtay ee had iyo gooraale ku howlgala una diyaarsan sida uu dabcan hadalka u dhigay. odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in guud ahaan dhowaan la arki doono war weyn oo lagu farxo oo gobolada wadanka oo dhammi ee koonfurta iyo bartamaha oo cadawga ay ku xooggan yihiin howlgallo wadajir oo la sameeyo looga dulqaadi doono. dhinaca kale, dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga soo sheegaya deegaano badan sida xogaha iyo warbixinada muhiimka ee haatan soo baxaya ay sheegayaan. Soomaaliya weli waxay la kufaakacaysaa cunaqabataynta dhinaca hubka ah, balse sida muuqata haatan mar walba oo heshiis siyaasadeed oo gudaha la helo, aaminaad hay-adaha dowladda dhexdooda ah, waa ay fududaan doontaa in cunaqabataynta laga qaado dalkana loo ogolaado inuu hub soo iibsado. laakiin hadba waxay ku xiran tahay inta hay-adaha dowliga la aaminayo iyo in dowladda dhexdeeda aysan cadowgu door ku lahayn oo aysan ka dhex shaqaysan si aysan hubkaasi gacanta ugu soo gelin. marka hubkaasi loo fasaxo Soomaaliya, cadowga xaggiisa uu aadana waa halis kale, sababtoo ah caalamku ma doonayo in hub uu galo Soomaaliya. hadda waxaa la aaminsan yahay in dabcan dhinaca hubka ee ay kooxdu hesho uu soo maro baddo. marka qaybtoodna waxaa la xaqiijiyay arrimaha kiimikooyinka qarxida laga sameeyo inay dekada magaalada Muqdisho laga soo dejiyo oo ay ka qaataan. iyadana waa mid kale muujinaysa daciifnimada tayada sirdoonka Soomaaliya iyo helitaanka xoogaalnimada arrimahan xasaasiga ah. bar walba oo dekada la koontaroolo xogteedana gacanta lagu dhigo iyo garoonka way adkaanaysaa inay kooxdu hesho sida muuqata waxyaabaha dabcan sahli karaya qaraxyada in lagu sameeyo sida xogtu ay muujinayso.
amuurahaas ayaa ugu waaweynaa wararkeena iyo dhacdooyinkeena ugu waaweyn waa si toosa ugula socoteen shabakada warbaahinta ee Warar TV waana ku maasantihiin daawashada la socodka wararkeena mar walba waxaanu idinla wadaagi doonaa xogaha xasaasiga dhacdooyinka muhiimka fariimaha falgalkoodu uu taagan yahay iyo sheekooyinka siyaasadeed ee u baahan bidhaaminta Warar TV waa wehelkaaga waana rugta qoray aad ka helayso xog ku xiiso gelisa dhacdooyin xaqiiqooyin xambaarsan iyo risaalo nabadgelyo dhamaantiin